مسجkiisa soo qora galabta 5na wuu soo qoray hadeeraan arkay kii kalena horu haka ugu dili kii kalena dalxiis buu kii ahaayay hadeera si fiican loo dilayaa buu yiri oo dhaarsan yahay waa gang waa mar kale Yamaanka Media waxaanu ka hadlaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku kortay ama ku dhalatay oo gaangiska noqday iyo dhibaatada kala haysata waalidiinta Soomaaliyeed waa qolada saddexaad ee dhunsan ee baadiyeysan ee banaanka taagan ee gaangiska noqotay ee gurubyada noqotay ee ayaga dhaxdoodaba hadda isdila wad ogtiin Mareykan bay ka soo bilaabatay muruuran Canada soo martay Ingiriiska u gudubtay Stockholm bay Scandinavian-ka gaadhay Denmark bay timid wahakada waxaynu nahnay bulsho ku liidata meel walba waxaynu soo burburinaa dalkeena waxaynu qaxooti ku nahnay dal islaameed dadka leeyihiin dalkaynu wax ka kororsan lahayn oo wax ka siyaasan lahayn iyagii baan culays ugu darno waxaan ku qasabnay inay inaga ilaaliyaan amnigeena ay sugaan sababtoo ah gacmeena ayaan isku dilaynaa waxayna soo koriyay dhamaanteen waalidiin waxayna soo galiyeen juhdi waxaynu ku soo wada kornay diinta islaamka halka waalidiinteena wax tar lahayn marka weynaanayna waxaynu ku abuurnay walwal iyo diiq iyo cariiri 206 number ah oo siyaara Washington ab intuu galo foonka galo intuu googolka galo wuxuu ka soo bixiyaa intaas oo number kii maalintii hore uu ka soo diray 952 buu ahaa 1 o'clock buu soo diray 3 o'clockna falku waa dhaca dhibaatada ugu weyn ee meesha taalla waxay tahay waalidiinta Soomaaliyeed kama warahayaan wiilashoodii gabdhahooda meesha ay aadayaan halkan waa meesha baskooladaha markii la gadanayo la yimaado inta aadan gadanin waxa ku qasab kugu ah ama waajib kugu ah inaad training qaadatid sagaarka waagii la xayeysiin jiray waxay ahayd markii xayeysiinta ay dhamaatay ayaa la dhihi jiray digniin sagaarka caafimaadka u daran yahay laakiin qurbaha meeshaynu wada joogno Canada iyo Australia America ama UK ba dhehe sidaynu wada ognahay dhamaan inta aadan gadan baskoolada waxa waajib kugu ah inaad trainingkeeda aad muujisid inaad tababar u leedahay inaad ridi kartid and squeeze the trigger just dying every day and they ain't no bad they just trying to make a way and I ain't no different so if I get listen these are my last wishes I hope you get them right girl if I don't make it home tonight I know it's harsh but this is how I feel girl it's coming from the heart I hope it doesn't end the way it had to start cause it started out bad but I made it through dhibaatooyinka ubadkeena ay keenaan waxa dusha saarta ama ku dhibaatooda hooyooyinka Soomaaliyeed aaway doorkii odayaasha ama aaway doorkii aabayaasheena Soomaaliyeed oo daayarteena ay banaanka ay khadka ka sii baxayso ayaa laba isweydiinaysay ayaa yar hadii la isweydiina qaab cala la isweydiiya hatta waxa la gaaray hooyo ilmaheedu ka xidhan yahay aabo in la dhaho sheegin ilmihiisu inuu xidhan yahay oo ilmahaga aaway Soomaaliya jira hatta in mushkiladii la isla qaybsan waayo fadhi ku dirka qiila wa qalada reero ku baabeen qoysasna ay ku dumeen jeel gelin mise ilmahagi baa adiga ma taqaanaa dad dilid markaas aad qayli doontaa hooyo ama aabe ha ku diganin qof walaalka ama walaasha ilmaheeda ay xiran yihiin bariba adigu ma sheegi kartid ilmahaga in la xiri doono ummadda Soomaaliyeed waxaan faraynaa inay wacyi yeeshaan qof walba wax ku dhacaan ay u tagaan si ay u dajiyaan cilmi ahaan waxa la soo baaray stresska ama buuqa maskaxiyanka iyo waalida dhaqanta inay roon tahay waalida dhaqanta walaal ha ku diganin qof walaalka ay ilmihiisa ay xiran yihiin u tago dhiirigeli una sheeg waxaan inay dhamaan doonaan biidnillah barnaamij midkan la mid intaan ku kulmi doono daawada sida iyo nabadgelyo waa mar kale iyo Yamaanka Media